haweeney rakaab ah oo xanuunsan oo ku sugnayd dalka Mareykanka ayaa ku adkaysatay in wadankeeda dib ay ugu laabato iyadoo arintaasi ay ahayd dardaarankeedii ugu dambeeyay inta aysan dhimanin ka hor. xaaladeeda caafimaad ayaa sii xumaatay kadib markii uu kansar kaga dhacay beerka. shaqaalihii diyaaradda waxaa ku adkaatay xaaladda haweeneyda oo markii loo keenay aad u garaab ahayd, arintaasi oo u diideysay inay safarto sharci ahaan. waxa ay la tashteen maamulihii safarka iyo kan diyaaradaha airportka Washington. waxaa la isku waafaqay in safarka loo ogolaado maadaama ay doonayso in hadiiba naftu ay ka baxayso ay wadankeeda ku nafbaxdo. iyadoo ay jirto safarku inuu dheer yahay ayaa shaqaalihii diyaaraddu aysan ka gaabin in haweeneyda ay u fidiyaan daryeelkii ay u baahnayd si mar dalkeeda loo gaarsiiyo. ilaa intii diyaaraddu ay ka caga dhiganaysay garoonka diyaaradaha ee Qaahira, haweeneyda ayaa doonaysay in mar ay qaadato hawada Masar oo ah dalkeeda hooyo. gabadhii safarka ahayd xilligii diyaaraddu ay caga dhigatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Qaahira ayay naftu ka baxday. waxa uu hirgalay wixii ay doonaysay oo ahaa inay ku dhimato gudaha dalkeeda laguna aaso halkaasi. Abdulqaadir